Xildhibaankii ka mid ah baarlamaanka UK qaanuunku uma oggola inuu iska casilo. Qaanuunkaas oo la dejiyay 1624 ayaa ka mamnuucaya xubnaha baarlamaanka UK inay si iskooda ay uga tanaasulaan xildhibaannimada. Sababtoo ah baa la yidhi waagaas qofkii noqda xubin ka tirsan baarlamaanka lacag fiican lama siin jirin, marka dad badan ayaa intay baarlamaanka galaan ka tegi jiray muddo yar kadib. Markaas ayaa waxa ay xildhibaanadu meel mariyeen xeerkaas dhigayay inaysan xildhibaanadu iska casili karin xilkooda. Laakiin iyada oo ay saasi tahay ayaa xildhibaanadu awood u leeyihiin inay xilkooda ka tagaan iyagoo aan iscasilin, waxaana ay isticmaalaan xeer kale oo la dejiyay 1701 oo ahaa in qof baarlamaanka ka tirsan haddii uu shaqo ka helo boqortooyada uu xubinnimadiisii baarlamaanku meesha ka baxayso. Waxa ay ka baqayeen in qofka xildhibaanka ah uu intuu boqorku jago siiyo uu markaas noqdo qof awaamirtii boqorka ku socda. Haddaba xeerkaas ayaa waxa uu noqday waxa ay cuskadaan qofkii ka tirsan baarlamaanka waddankaas ee raba inuu shaqada ka tago. Marka hore waxa uu dalbadaa inuu shaqo ka qabto boqortooyada waddankaas. Marka shaqadaas la siiyana macnaheedu waxa weeye inuu baarlamaanka ka tegay, sababtoo ah iskuma hayn karo shaqo boqortooyada aad u haysid iyo inaad ahaato xubin ka tirsan baarlamaanka waddankaas. Inkastoo ay shaqooyinkaas ay yihiin shaqooyin magacyaal ah oo aan lacag badan lagu qaadan, laakiin loogu talagalay in qofkii xildhibaannimada raba inuu ka tago uu awood u yeesho inuu saas sameeyo, maadaama ay xeerka baarlamaanka ay tahay inuusan qofku iscasili karin. Laakiin 2011 ayaa waxaa iscasilay xildhibaan ka soo jeeda waqooyiga Ireland oo iyagu u ololeeyay inay ka go'aan UK inteeda kale. Xildhibaankaas oo isaga iyo xisbigiisu ka soo horjeedaan boqortooyada oo aad uga ololeeya inayba ka go'aan UK inteeda kale, ayaa waxa uu u diray afhayeenka baarlamaanka inuu iska casilay xilkiisii. Laakiin warqadiisii kuma darin dalabkii shaqada uu kaga codsanayo boqortooyada waddankaas. Laakiin afhayeenkii baarlamaanka ayaan diidin codsigiisii, laakiin waxa uu yidhi caadadu waxa weeye qofkii raba inuu ka tago baarlamaanka waddankan inuu shaqo ka helo boqortooyada. Haddaba shaqadaas waa lagu siiyey oo sidaas baa uga tagtay baarlamaanka. Haddaba xildhibaankii ka tegaya baarlamaankaas shaqo magacuyaal ah ayaa laga siiyaa boqortooyada waddankaas, taasoo u sahlaysa inuu xilka ka dego. Xataa haddii uu boqortooyada ka soo horjeedo oo yidhaahdo anigu si toos ah ayaan isu casilay, waxaa loogu jawaabaa shaqaad ka heshay boqortooyada, sidaa daraaddeed ayaa uga tagtay xilkan ee maadan iscasilin.